عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال kusoo dhawaada mowduuceena maanta haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar mowduucan haddaad ka hesha like dhufo oo saaxiibadaada kale sii gaadhsii oo sii sheer gare waxaan caawa ka hadli doonaa cudurka adduunka oo dhan ka qaylisiiyey ee coronavirus haddaba waa maxay coronavirus intee wadan ayuu ku faafay muxuu ka dhashay fayraskani sidee looga hortagi karaa maxaa lagu kala qaadaa fayraskan corona dhammaan qodobadan ayaanu ku eegi doonaa ee coronavirus mowduuceena ku soo dhawow isagoo dhammaystiran haddaba waa maxay calaamadaha lagu garan karo fayraskan dunidu ay qaatiyaanka ka taagan tahay ee coronavirus waa maxay qaabka uu fudi karo iyadoo ay soo kordhayso cabsida laga qabo cudurkan halista badan ee coronavirus ayaa dad badani u dhimanayaan fayraskan dowladda waddanka Shiinaha ayaa sheegtay in dad badani ay u dhinteen fayraskani haddaba si looga fogaado fayraskani cusub ee sida degdeg ah ugu sii fudaya caalamka oo dhibaato caalami ah loo aqoonsado sidii ka dhacday markii fayraskii SARS ee Shiinaha ka dilaaci jiray hadda laga joogo 17 sano ka hor xukuumadda Shiinaha ayaa waxay ku dhawaaqday in bandow la saaray oo la karantiimay 12 magaalo oo dalkaas ku yaala oo ay ku nool yihiin 40 milyan oo ruux magaalooyinkaas oo si rasmi ah looga xidhay waddanka intiisa kalena lana mamnuucay inay cidi soo gasho idina ka baxdo magaalooyinkaas oo loogu baaqnay dadku inay ku sugnaadaan guryahooda lana baajiyay xaflada sanadeedka ay qabsan jireen ay ku tagi jireen dayaxa kuwaas oo caadiyan isugu bixi jiray goobaha caamka dalkaasi waxay dadweynaha caadiga ah si gaar ahaan kuwa sida joogtada ay ugu safraan tareemada ay joogteeyeen afkooda iyo sankooda inay daboolaan fayraskan corona oo markii ugu horeysay lagu arkay magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhamaadkii bishii December 2019 si degdeg ah ugu fiday gobolada intiisa kalena waxa uu ka mid yahay fayrasyada sida weyn u asiiba xayawaanada laakiin dadkana ku dhici kara isagoo dadkan uga dhex faafi kara neefta qofka bukaanka ah ama dadku gacanta istaabto ama jirkaaga oo intiisa kale ay soo gaadho fayraskani waxa uu ku ba'ay wuxuu inta badan ku dhacaa xilli qaboobaha dadka haddaba waa maxay calaamadaha lagu garan karo fayraskan corona waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garto xumad saayida iyo sidoo kale xanuuno laga dareemo mareennada neefsiga inuu qofku qufaco qofkaasi marmarka qaarna neefsashadu ay ciriiri ku noqoto oo dhibsadaba waxay Shiinuhu badinayaan in fayraskani corona uu ka bilaabay neef ka mid ah xayawaanada nool ee ku sugnaa suuqa lagu kala iibsado xoolaha ee xayawaanada suuqaas oo ku yaala bartamaha dalkaasi ku taala intaas kadibna u gudbay dadka iyadoo ay muddada qofka uu hayn karana ay ku dhowdahay 7 ilaa 2 toddobaad xilliga kadibna qofka bukaanka uu dhinacuun u dhacayo oo qofka fayraska corona looga shakiyo mana jirto daawo gaar ah loogu talagalay ama tala lagaga hortagi karo haddaba howlwadeenada caafimaadka oo ku sugan magaalada Wuhan oo fayraskan ka bilaabmay ayaa sheegay inay u taagla yihiin daaweynta dadka uu soo ritay xanuunkaasi oo farabatay awgeed taas oo keentay inay xukuumaddu 6 maalmood gudahood ay magaalada kaga dhisto isbitaal weyn oo qaadi kara 1,000 sariirood oo bukaanka la jiifin karo si haddaba looga hakiyo fiditaanka wadamada caalamka qaarkood waxay garoomada diyaaradaha qaarkood ku rakibeen kaamaradaha qiyaasa heerkulka bini'aadamka si ay ula socdaan inay xumadaysan yihiin dadka ka imanaya dalalka Shiinaha iyo dalalka kale ee gobolada Shiinuhu ku yaalo ee u dhow waxayna ku dhawaaqeen fayraskaasi soo gaadhay iyadoo hay'adaha caafimaadka adduunkuna ilaa iyo hadda ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah hay'adaha caafimaadka adduunka ayaa hore uga aqoonsatay fayrasyo dhif ay ka mid ahaayeen fayraskii ku dhici jiray dadka ee Zika Ebola iyo hargabkii doofaarka kiisaskiisa lagu arkay wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka, Malaysia, Singapore, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed, Japan, Thailand, Australia iyo Talyaaniga xukuumadda maxalliga ah Hong Kong ayaa iyaduna ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waxaana la joojiyay dhammaan munaasabadihii la iskugu iman jiray iyo goobaha caamka waxaana la hakiyay duulimaadyadii u kala gooshi jiray Hong Kong iyo magaalada Wuhan dalkaas Shiinaha intan diyaarinta mowduucan ku guda jiray wixii ka yaabiyay waxa uu ahaa arday magaciisu yahay Johnson Mark oo 23 sano jir ah u dhashay dalkan Singapore isagoo maraya dariiq ku yaala London ay koox rag ah garaaceen iyagoo ku yiri dalkeena kala tag coronavirus booliska dalkaasi ayaa sheegay in falkan yahay fal cunsurinimo iyo sidoo kale dhacdo kale oo cajiib ahayd dalalka qaar oo bilaabay inay lugaha isku salaamaan waaba madaxdooda kadib cabsi ay qabaan ditaanka xanuunka coronavirus oo dunida heegan ugu jirto sida loo xakameyn lahaa sawirkan waa madaxweynaha waddanka Tanzania iyo hogaamiyaha mucaaradka oo lugta isku salaamaya cajaayib mowduuca diyaarintiisa ku jirnay ee mar walba weystarisay xanuunada dadka ee coronavirus faafitaankiisa waxa hadda soo gaadhaysa mowduucyo la xiriira in wadamada qaar Afrika kamid ah ay xanuunka coronavirus uu
soo gaadhay oo dadka qaar lagu arkay dad ka soo safray wadamada China oo kale. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mowduuceennii aan kaga hadlaynay dhibaatooyinka fayraskan iyo fiditaankiisa. waxaan Allah inooga rajaynayaa badqab taama iyo guud ahaan ummatul islaam in xanuunkan Allah na hareer mariyo. waxaa muhiim ah in laga digtoonaado tegista wadamada cudurradan ay ka dilaaceen. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuceennii. intaan ku kulmi doono mowduuca la mid ah, fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkeena waxaa naga xasuusinaya inaad subscribe noo saarto, sidoo kalena mowduuca sii share garayso. haddaad ka heshayna mowduuca Allah ku dhufato. fi amaanillah.